halkani waa laanta af Soomaaliga ee BBC oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaar iyo barta internetka ee bbcsomali.com. duhur wanaagsan dhagaystayaal dhammaantiinba waa Axad 3 Diseembar sanadka 2018. saacadda Afrikada barina waa 2 duhurnimo oo gow ah. barnaamijka duhurnimo waxaad ku maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay ee doorashada madaxtinimada ee ka dhacaysa Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo. waxa kale oo aan barnaamijkeena duhurnimo badankiisa ku eegi doonaa fahamkeedii siyaasadda iyo sidii u fahantay wadankan annaka inaan leenahay. waan soo wada qaxnay, wadankan baa wada imaanay, caruur baan ku wada korsanaa. ilaahay waxay garatay codkeedii inuu muhiim yahay oo isbedel weyn iyo wadankan ka qaban karto. waa barnaamij gaar ah oo aan ku eegi doono dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee doorashadii xilliga dhexe ee Mareykanka iyo guulaha ay Soomaalidu gaareen. barnaamijka waxaa idinla socodsiin doonaa anigoo ah Axmed Mursal Xuseen. marka horese waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka kuwooda ugu doorka roon iyo Axmed Bader. maasanid Axmed Mursal. goobaha codbixinta ayaa la furay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo oo dalka labaad ugu weyn qaaradda Afrika. ku dhawaad 40 milyan oo qof ayaa xaq u leh doorashada in codkooda ay dhiibtaan. madaxweynaha dalkaasi Joseph Kabila oo dalka Kongo ka talinaya tan iyo 2001 ayaa imika xilka ka dagaya. balse doorashadan waxaa horey hareeyay rabshado kadib markii guddiga doorashada ay sheegeen in dad gaaraya 1.3 milyan oo qof aysan doorashada maanta ka qayb gali doonin. haddii doorashada wax waliba sidii loogu talagalay u dhacaan waxay noqonaysaa doorashadii ugu horeysay oo si nabada xukunka la isugu wareejiyo dalka Kongo tan iyo in dalkaasi xorriyadda ka qaatay Belgium sanadii 1960. dalka Bangladesh waxaa ka dhacay isku dhacyo u dhaxeeya taageerayaasha xisbiyada u tartamaya doorashada maanta ka dhacaysa dalkaasi. ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhimatay isku dhacyadaasi, isla markaana 2 ka mid ah waxaa toogasho ku dilay booliska dalkaasi. ra'iisul wasaare Sheikh Hasina ayaa markii saddexaad u tartamaysa xilka madaxweynenimada Bangladesh. kooxda Taliban ee dalka Afghanistan ayaa sheegtay inaysan wax wada hadallo toos ah la yeelan doonin dowladda Afghanistan marka wareegga labaad ee wada hadallada ay ka dhacayaan dalka Sacuudiga. hase yeeshee sargaal sare oo ka tirsan wakiilada Taliban ayaa waxa uu sheegay in saraakiisha Mareykanka ay la kulmi doonaan magaalada Jeddah. Taliban ayaa mar waliba waxa ay diidaan inay kulan la yeeshaan dowladda Afghanistan oo ay ku tilmaamaan mid daba dhilif u ah reer galbeedka. ugu dambeynna ku dhawaad 250 qof ayaa isugu soo baxay magaalada Basra ee dalka Ciraaq oo ay ka dhigeen dibadbaxyo ay dawladda uga soo horjeedaan. dibadbaxyada ayaa waxay ku dalbanayeen in xilka uu ka dago barasabka gobolka. qaar ka mid ah dibadbaxayaasha ayaa waxa ay xidhnaayeen jaakado jaallo ah, taasi oo calaamad u ahayd dibadbaxyadii dalka Faransiiska. horey waxaa magaalada Basra ee dalka Ciraaq uga dhacay dibadbaxyo ay dadka ku dalbanayeen adeegyada aasaasiga iyo in shaqooyin loo abuuro. warkii dunida waa naga inta Axmed. mahadsanid Axmed Bader. waa hagaag aynu ku horeyno dalka Kongo. xarumaha codbixinta ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo ayaa irdaha loo furay iyadoo ugu dambeyntii ay dalkaasi ka dhacayso doorasho waqti dheer la sugayay. madaxweyne Joseph Kabila oo talada dalkaasi hayay 17 sannadood ayaa xilka ka degi doona, balse dad badan ayaa ka walaacsan in doorashadani ay noqon doonto mid hufan oo madax bannaan. cabdixaafid cawil Ismaaciil ayaa khadka toos ugu jira. cabdixaafid. axmed aad ayaad u mahadsan tahay. sidii aad sheegtay 17 sano ayuu Kabila hayay xukunka dalkaasi. codayntii maanta waa ay bilaabantay inkastoo magaalada Kinshasa ee caasimada dalkaasi ay roobab laxaad leh oo ka da'ay awgeed ay dadka dib u yara dhigeen. meelaha qaarkoodna Axmed waxaa laga soo sheegayaa dhibaatooyin aan badnayn kadib mashiinada lagu codaynayo oo aan si wanaagsan u shaqaynaynin awgood. dad badanna markaasi ay ku adkaatay in magacyadoodii laga helo nidaamka kombiyuutarada ee ay ku codaynayaan. tani meelo badan ayay ka abuurtay markaa cagajiid, laakiin guud ahaan Axmed oo xaaladdu way degan tahay. dadkuna waxa ay ku faraxsan yihiin inay codkooda dhiibtaan. musharaxiinta ugu cadcad waxa ka mid ah Emmanuel Ramazani Shadari oo ay aad isugu dhow yihiin madaxweyne Kabila. ninkaasi haddii uu ku soo baxo waxaa la isweydiinayaa siyaasadda Kabila inay wax iska bedeli doonaan iyo in kale. Axmed.
tahay cabdixaafid cawil ismaaciil oo khadka toos ugu jiray oo nala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee doorashada dalka Congo. haatanna ku soo dhowaada barnaamij aynu ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka iyo guulihii ay Soomaalidu ka gaareen. waa kan Siyaad Saciid Saalax oo inala socodsiin doona. doorashadii xilliga dhexe ee ka dhacday dalkan Mareykanka sanadkan ayaa lagu sheegaa inay ka mid ahay taariikhda dalkan doorashooyinkii ugu kululaa mid ka mid ah. doorashadan oo labada xisbi ay ku doonayeen in midba midka kale uu ka qaato sareynta codka ee labada aqal. xiisaha doorashadan iyo ololaha musharaxiinta tartamaya ayaa si weyn uga muuqday muddooyinka badi warbaahinta dalkan oo ay ballanqaadyo ku sheeganayeen dacaayadana hawada isu marinayeen. doorashada dhacday sanadkan arrimo kala duwan ayaa loo aanaynayaa sababta xiisaha gaarka ah u yeeshay. ugu horeyn ayay dadku qabaan in la doonayo in la yareeyo awoodaha madaxweynaha haddii kuraasta ay ku soo baxaan xisbiga dimuqraadiga si ay u hakiyaan sharciyada badan ee miiska u saaran ee uu ansixinta u doonayo madaxweyne Trump, iyo in la sii wadi karo eedeymaha loo haysto baarlamaankuna markay doonaan u yeeri karaan. isjiijiidka loolankaas oo soo socday muddo 10 bilood ah ayaa tartankaas wuxuu ku soo idlaaday in aqalka hoose ay guul weyn ka keenaan xisbiga dimuqraadiga oo sanadkan hantay kuraasta aqalka hoose oo ka kooban 435 kursi ay heleen 235 ka mid ah ayna si toos ah ula wareegi doonaan bisha soo socota horaanteeda. muhiimadda ay doorashada sanadkan dhacday ay lahayd ayaa waxaa inooga faaloonaya Cismaan Axmed oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaali Mareykanka ee Minnesota degan dhawaana u tartamay xildhibaanada aqalka hoose ee Minnesota. xisbiyaasha horta marka midterm la dhaho election loo yaqaano muhiim wuxuu u yahay badanaa xisbiga madaxweynaha markaas haysama xisbiga ka soo horjeeda. haddana saa ogtahay xisbiga Jamhuuriga oo Donald Trump ka soo jeedo madaxweynaha asaga ahaa labada aqalka sare iyo aqalka hoose oo sanadkii house loo kala yaqaan ayaga haystay labada sano la soo dhaafay. marka hadii laga bilaabo sanadkan iyo sanadkii la soo dhaafaba ilaa 2017kii labada xisbi waxay ku dadaalayeen midna wuxuu ku dadaalay xisbiga dimuqraadiga si ku hantin lahaayeen aqalka hoose iyo aqalka sare, ka kalena wuxuu ku dadaalay si ku sii wadan lahaayeen oo awood ay ku haysan lahaayeen labada aqalba. marka labada dadaal waxay u muuqataa waxa la dhigi karaa hadda xisbiga dimuqraadiga baa guush ugu fiican ka soo gaaray. xisbiga asagoo ku dadaalay inay helaan aqalka hoose oo Congress-ka oo loo yaqaano waxay u baahnayeen 23 kursi waxayna heleen 30 ka badan oo kursi ugu badnaa ay helaan ilaa iyo waxa loo yaqaano warargay waa madaxweynaha wadanka ahaa Nixon. marka taas waxay tusaysaa muhiimadda ay ka gaareen oo aqalkii hoose ay ku guuleysteen. xisbiga Jamhuuriga oo madaxweynaha Trump ka yahay ayagana waxay ku guuleysteen xisbi inay helaan aqalka sare oo sanadkii loo yaqaano numberkay ku haysteen ay sii kordhisaan. taas marka ay waxay u kordhin kartaa oo si u shaqeyso waxa way aqalka hoose wax soo baasiyo aqalkii sare inay marto oo madaxweynaha u gudubto waa sharciga kala baasinayo. marka hadda aqalka hoose wixii soo mara waxay ku istaagayaan aqalka sare oo US sanadka ah. marka taas madaxweynaha waxay siinaysaa awood oo kula macaamiltamo ama kula negotiate gareeyo xisbiga dimuqraadiga. marka aad iyo aad waxaan dhigi karnaa xisbiga dimuqraadiga guul fiican u soo hooyeen. waxaan hadda la isku hayaa guusha ay soo hooyeen iyo ololaha ay suubiyeen ma wadi karaan ma gaarsiin karaan 2020 ma gaarsiin karaan madaxweynaha doorashada markay dhacayso. hadday gaarsiiyaan waxaa macquul ah inay madaxweynaha helaan iyo labada aqalba inay raayaan. marka aad iyo aad bay ugu guuleysteen xisbiga dimuqraadiga. dhinaca jamhuurigana waxaa waay iyagana waxay kasoo hooyeen guulo kale. waxaa la isweydiin karaa maxaa keenay guuldarada xisbiga jamhuuriga ee sanadkan, sidayse dadka u arkaan. waxa iyadana nooga faaloonaya Maxamuud Muuse Xasan oo loo yaqaan BBC kana mid ah dadka ka shaqeeya arrimaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee Minnesota. guuldarada xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka doorashadii hadda dhacday loo guuleystay kuraasta aqalka hoose runtii waxa ay keentay dhowr sababood. marka ugu horeysa xisbiga jamhuuriga markii madaxweyne Trump uu yimi waxa inta badan dadka Mareykanka ay u codeeyaan doorashadan dhexe
jihada dalka uu u socdo shaqada madaxweynaha uu qabtay sida loo arko taas ay marka dadka u codayaan marka runtii laguma qanacsanayn shaqadii madaxweyne Trump uu qabtay 2 sano uu joogay waxa loo arkaa in dalka uu aaday jiha khaldan taas kaliya maaha waxa qayb ka ah xisbigiisii laftigiisa jamhuuriga ahaa siyaasiyiin badan oo caan oo kamid ah ayaa ka hor yimi qaabka uu dalka iyo jihada uu wado waxaan ognahay markii xilka uu la wareegay golihiisii wasiirada uu magacaabay oo asaga la socday dad badan oo kamid ah way isqabsadeen shaqadii buu ka cayriyay waxaan ognahay in labadii wasiiro hadda u dambeeyay ahayeen kii Homeland Security iyo kii Sigaasandhiga isasileen marka isqabsi badan baa runtii yimi xilligii hadda uu asagu 2 sano u joogay dad badan oo asaga shaqada la shaqeynay baa ka tagay kuwa badan buu shaqada ka cayriyay marka taas waxay ku tusaysaa doorashada dadku sida ay hadda ay u codeeyeen xisbiga dimuqraadiga oo iyagu markii horeba labada aqalba laga haystay marka sidoo kale siyaasadda arrimaha immigration oo kale dad badan oo qaxooti ayaa la dhoofiyay dalka sida uu u wado immigration-ka laftigeeda dadka Mareykanka way ka hor yimaadeen banacbay badan ka dhacay waxa kale oo runtii lagu hor yimi siyaasadda arrimaha gudaha ee dalka marka isku soo duub runtii doorashada tan keentay guuldarrada xisbigiisa waxa loo arkaa dalka inta uu joogay asagu in jiha khaldan uu waday marka taas ayaa keentay in looga adkaado kuraasta doorashada hadda dhacday November sanadka 2018 marka waa maasantaas sheegta marka aan ka soo tagno guuldaradii jamhuuriga ayaan iyadana waxaan doonaynaa inaan wax ka ogaano muhiimadda ay xisbiga dimuqraadiga u leedahay guushii ay heleen 6 November ee sanadkan waxa inoo faaleynaya Faarax Maxamed Cali Faarax Buluug oo ah agaasimaha dooda fagaaraha ee degan gobolka Minnesota runtii xisbiga dimuqraadiga laba arrimood ayay muhiimad ugu lahayd doorashadii la soo dhaafay tan koowaad waxay ahayd in ay maaragtay ku soo noqdaan aqlabiyadda labada aqal oo runtii ay noqdaan majority Congress-ka inkastoo aysan u suurtagelin sanadka inay noqdaan majority haddana aqalka House-ka way noqdeen majority sidaas oo kale isla qodobkaas ah majoritinimada waxa ay joogi doonaan ama ay la wareegi doonaan gudiyada xoog gale runtii House-kana muhiimka oo ah sida gudiga judiciary-ga oo la socon doona baaritaanka loo yaqaan Mueller investigation ku saabsan qaladaadkii ka dhacay doorashadii la soo dhaafay 2016 iyo sidoo kale gudiyada kale iyaguna runtii qiimaha u leh gudiga financialka iyo gudiga budgetka qodobka labaadna waxay tahay runtii policy-ga dimuqraadiska ay leeyihiin inuu maaragtay ka hirgalo Congress-ka sida immigration-ka kale oo aan la socono runtii inay jiraan doodo badan oo ka taagan socdaalka gaar ahaan maaragtay in sida sharciyada loo qaato oo dadka wadanka Mareykanka imaanaya iyo waliba kuwa jooga sida Latinada oo kale iyo sidoo kale waxa kamid ah minimum wage wax loo yaqaan ama lacagaha lagu shaqeeyo in $15 kor loo dhaafiyo saacadii sidaas oo kale waxa kamid ah border wall-ka ama derbiga uu sheegay Donald Trump inuu ka dhisi doono xuduudda oo runtii dimuqraadku aad iyo aad uga soo horjeedaan maadaama taasina runtii hadda ay sababtay in Donald Trump uu dawladda shutdown ka dhiga ama uu xiro hay'ado badan oo dawladda ka tirsan isagoo runtii doonaya $5 bilyan oo oo derbigaas lagu dhiso taasina waa mid muhiimad u leh dimuqraadka inay ka soo horjeestaan waxa kale oo iyadana muhiim u ah dimuqraadka arrimaha la xiriira gun control-ka ama sidii loo joojin lahaa dhimashada ka imaanaysa hubka dadku ay wataan oo runtii ay ku soo dareen qodobo dhowr ah oo aad iyo aad u xakameynaya gudiga ama nimanka xooga badan leh siyaasadda ku xoog leh NRA-da loo yaqaano oo runtii ayagu leh shirkadaha iyo maaragtay meelaha hubka lagu iibiyo soona saara runtii hubka qudhiisa marka arrimahaas oo dhan ayay muhiimad ugu lahayd dimuqraadka waxa kale oo muhiimad runtii ayadana ugu dambayso ugu leedahay inay awoodooda doorashada madaxtinimada xigta 2020ga runtii ka dhici doonto Mareykanka oo qofkii Donald Trump la tartami lahaa iyo sida ay noqon lahayd inay runtii ayaduna ay u sii tahay maaragtay tijaabo fiican arrimahaas oo dhan ay marka runtii dimuqraadku aad iyo aadna inay ugu faraxsan yihiin inay majority ka noqdaan House-ka bal iyaduna aanu eegno sanadkan iyo doorashooyinkii Minnesota ka dhacay ay Soomaalidu ku soo baxeen
horaantii sanadkan waxaa Soomaalida Minnesota musharaxnimadooda ku dhawaaqay ilaa 8 qof oo u tartamayay xilal kala duwan kuwaas oo kala ahaa Ilhaan Cumar iyo Jamaal Cabdullaahi ayaa u wada tartamay kursi uu baneeyay muslimkii ugu horeeyay oo Congress-ka Mareykanka ka mid noqda Keith Ellison kaasoo ahaa kursiga degmada shanaad ee aqalka hoose ee sharci dejinta Mareykanka oo kursigii ugu sareeyay oo Soomaali u tartanto waxaa kursigaas si weyn ugu guuleystay Ilhaan Cumar oo doorashadii hore ee xisbiga ee primary-ga ku soo baxday iyadoo ka guuleysatay Jamaal iyo 5 qof oo kale oo qaarkood siyaasadda gobolka Minnesota magac ku lahaa sida haweeneyda Margaret Kalahar oo ahaan jirtay afhayeenka baarlamaanka Minnesota waxaa iyaguna kursiga xaafadda 62 u wada tartamay Hodan Xasan, Cusmaan Axmed iyo Cumar Faatax waxaana doorashadii isreereebka ahayd ee xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa ee dhacday bishii Agosto 14keedii ku soo baxday Hodan Xasan. Maxamuud Nuur ayaa isaguna u tartamay kursiga ay banaysay Ilhaan Cumar ee baarlamaanka Minnesota ee xaafadda 60 Fardowsa Jaamac ayaa u tartantay golaha deegaanka ee magaalada Mankero oo ay aad ugu soo baxday doorashadii hore ee xisbiga guul weyn ka gaartay. Siyaad Cali hore uu ahaa guddiga sare ee guddoonka waxbarashada magaalada Minneapolis ayaa isaguna kursigiisii dib ugu tartamay. kadib markii la gaaray doorashadii weyneed ee dhaceysay bishii November 6deedii waxa ahayd xilligii ugu adkaa oo ay labada xisbi u kala tartamayeen cidii guuleysan lahayd waxaana la galay tartan adag oo aan loo kala harin waxaadna ku arkaysay goob kasta oo aad marto tabeelayaal ay ku qoran yihiin halkudhigyo ay ka mid yihiin igu doorta qodobka waxaan ahay qof idiin shaqayn doona isii codkaaga aan baahiyahaaga wax ka qabtee iyo kuwa kale oo badan. Ilhan has more energy. She's done more to bring people together, to work for everyone, with anyone, to get things done, to listen, and most importantly, to lead. markii la gaaray 6 November ayaa habeennimadii waxaa lagu dhawaaqay ciddii soo baxday waxaana guuleystay dadkii Soomaaliyeed hore u maqasheen ee kala ahaa Ilhaan Cumar oo bishan dhalanaysa 3deeda loo dhaarin doono ka mid noqoshada Congress-ka Mareykanka noqonaysana qofkii ugu horeeyay Soomaaliya ee xilka noocaas qabta. Maxamuud Nuur oo ayaa ku guuleystay kursigii xaafadda 60A oo uu hore ugu tartamay sanadkii 2014 haysatay Hodan Xasan oo ka mid noqonaysa golaha sharci dejinta Minnesota. Soomaalida Minnesota waxa ay baarlamaanka aqalka hoose ee Minnesota ku yeesheen 2 xildhibaan sanadkan. Siyaad Cali ayaa xajistay kursigiisii uu ku guuleystay 4 sano ka hor ee ahaa guddoonka waxbarashada magaalada Minneapolis. Soomaalida Minnesota ayaa guush waxay u ahayd mid lama iloobaan ah kadib markii ay soo saareen 4 qof oo kuraas kala duwan ku guuleystay oo wada Soomaali ah. waxay ahayd guushiyaasi dhacdo looga sheekaysanayay goob walba, guri walba ama gaari walba oo ay saaran yihiin 2 qof iyo in ka badan. waxayna dadkii Soomaaliyeed mahadiyeen soo bixi ay soo baxeen codadkii ay dhiibteen oo ay ku soo saareen dad iyaga kamid ah. Ugaas Cashuur oo ka mid ahaa odayaasha Minnesota ayaa leh waa guul in dadkeena codkoodii ay maanta wax ku qabsadeen. cod qof iyo codkiisa wadankan cod baa wax lagu kala goostaa maantana waxaad aragteen codkiinii inaad ku goosateen oo aad dhalinyaradiinii ku soo saarteen midaasaad arkaysaan wadankan marka sidaynu ku noolaan karro waa sidaas. musharaxiintii Soomaali Mareykanka ahaa ee guuleystay ma aha inay doorteen dadka Soomaaliyeed ee kaliya waxaa musharaxnimadooda u ololeyn jiray dad Mareykan ah
waxaa codadkooda siinayay cid walba ama qoomiyad walba oo degan dalkan maraykanka iyaga oo daneynaya barnaamijyadii kala duwanaa ay soo bandhigeen iyo waxqabadkoodii hore sida uu sheegaya Cabdullaahi Bashiir oo ka mid ah jaaliyadda Minnesota. dadka maanta soo baxay ma aha community Soomaali ee kaliya soo saareen waxaa soo saaray dad cadaan ah dad madow ah dad badan oo aan Soomaali ahayn ayaa soo saaray maxay percentage-ka Soomaaliga ka qayb galay markaa fiirisid doorashada waa dad aad u yar laakiin numberka ay heleen dadka annaga aan rabnay waxaa siiyey dadka cadaanka ah oo wadankan ku nool waxaa la isweydiin karaa guud ahaan siday u saameyn karto Soomaalida iyo dadka kale ee Segalootiga ah isbedelkii dhacay waa kan mar kale garyaqaan Cabdinaasir Cabdullaahi. Soomaali iyo haddaan nahay iyo ma aragtay guud ahaanba immigrant community-ga minority-ga runtii si aad ay inoo saameynaysaa si wanaagsan bay inoo saameynaysaa macnaheedu waxa weeye madaxweynuhu maalmihii u dambeysay hanjabaadyo badan oo bixinaya shuruuc badan wax ka bedelaya waxaa ka mid ah carruurta meeshan ku dhashaan inkastoo xataa dastuurkiisan awood u lahayn haddana waxyaabo badan oo waxaa jira ay ka fikirayaan si alla si dadka lagu dhibaatayn lahaa maanta wixii laga bilaabo mar haddii isbedelku ay meesha January lagu gaaro awoodda markay gasho dimuqraadku ila wareegaan house kaasayto madaxweynaha hawshiisa dhan caqabad bay ku noqonaysaa sababtoo wax isaga iyo sanadka kaliya waxma soo saari karaan waa inay kala gorgortamaan waxaan ognahay aqalka hoose xataa inay gabar Soomaaliya noogu jirto Ilhaan Cumar baa noogu jirto wax aad runtii loogu baro saadaradeed marka waxa weeye awoodiisi xaggan xataa lafteeda maadaama ay ka weeqan tahay wax badan oo hindisooyin badan oo rabay uma hirgeli doonaan taana waxay tahay waa arrin welcome in la soo dhaweeyo u baahan aan aadna runtii ugu faraxsanahay waxyaabo badan oo la hawaan sameynaya ma sameyn kari doono waa inuu table-ka la fadhiisto ururka demokraatka si ay si compromise ku qasban yahay inuu iyaga la gorgortamo hor fadhiisto oo kala tashado waxyaabo oo sameyn iyagana kama ogolaan doono waxyaabo uu ku hadlay waa la guuleystay waa la damaashaadayaa waxaa si xigta sidee wax looga qaban karaa baahiyaha jira ee ugu weyn tahay tan dhalinyarada Minnesota waxaa ka dhacay dilal ay isu geystaan dhalinyarada Soomaaliyeed dhexdooda sidee bay u arkaan arrimaha dadka guuleystay waa kan Maxamuud Nuur hooshii nooma dhammaan hooshii oo Ilaahay noo igmaday inaan ku guuleysano doorashada dhalinyaradayna waa ka warhaysan marxaladay ku sugan yihiin ma aha mid siyaasad kali lagu xalin karo waa mid u baahan runtii si dhab ah inaan iskaashano wallahi waa'id anagoo meesha wada joogno marxaladda ay ku sugan yihiin ee qarka u saaran yihiin noloshooda guusheeda waxba ma tarayso guusheena waxba ma tarayso wadatashi dhab ah aan miradhal leh culamaauddiinka siyaasiyiinta waxgaradka ganacsatada aan isku kaashanayno in Ilaahay ceebteena asturo aan u istaagno dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Minneapolis iyo gobolka Minnesota laga maarmaan waay marka dad ay wax doortaan waxay rajeynayaan cidii ay doorteen inay wax uun baahiyaha guud ka taraan gobolkan Minnesota ay Soomaalidu tumi waa gobol sidee dhaqaalihiisu baahida Soomaalidu qabtase see wax uga qaban karaan waxa koobaya Xamse Warfaa oo kamid ah horjoogayaasha Soomaalida Minnesota gobolka Minnesota seen ognahay runtii waxayna keenayba waa gobol barwaaqo ah prosperity state-kani wax soo saarkiisu waa $400 bilyan weeye $400 billion weeye laakiin isku si looga wada faa'iido waxtarkiisa badan dad gooniyo ku dhaca marka sidee baynu inagu uga faa'iideysanaa waxaan uga faa'iideysan karnaa miisaska talada lagu gaarayo dad inako inoo fariista oo maaragtay inooga qayb galay in la helo saad ogtiin 2016 walaashin Ilhaan baa Congress-ka inoo gashay gobolka Minnesota hadda Congress-ka Mareykanka ee matalisa waxaynu nasiib u helnay laba qof oo Soomaaliyeed in Congress-ka Minnesota maaragtay baarlamaanka Minnesota inoo galaan sanadkan uu ka fursad fiican yahay sanadii hore
sanadihii hore waxaa dhici jirtay in maaragtay labada guriba ay haysan jireen Republicanka sanadkan House-ka iyo governorka labadaba maaragtay dimuqraadiga gacanta ku haya waxaa suurtagali karta inay hormaraan biilal aynu ku maaragtay aynu horgeeno baarlamaanka oo layno ansixiyo kuwaas oo ka turjumaya dhibaatooyinkan haystay inaynu maaragtay aynu ku xalisano haday noqoto xaq dhaqaale deeqa Shabeelle oo kamida dadkii doorashada Ilhaan Cumar Kaanin libaaxle ka qaatay ayaa sharaxaysa waxa ku xambaaray in Ilhaan gasho siyaasadda iyo caqabadaha dhaqanka Soomaalida ah ee ka hor yimi fahankeedii siyaasadda iyo sidii u fahantay wadankan annaka inaan leenahay waan soo wada qaxnay wadankan baa wada imaana caruur baan ku wada korsanaa Ilhaan waxay garatay codkeedii inuu muhiim yahay oo isbedel weyn iyo wadankan ka qaban karto goortii iimayeysatay inay tartamto waxay garatay ayada maskaxdeedii waxa ku jiray culimaadka cilmiga Ilaahay uu siiyay inay wax qaban karto dad baa la fadhiistaan waxay yiraahdeen ka har siyaasadda muku wanaagsan oo gabar baa tahay ka socda abitri haddana waa la fadhiistay waxa la yiri bal tookadaadi ma ahan tookada dambe ma soconaysa abitri waxay haddana waa la fadhiistay waxa la yiraahday qof muslim baa tahay xijaabi baa tahay Ilaahay mooyaane cid kale tamiya cilinayo abitri wana run rabbi ba u qoro kursigaanay tartanka Soomaalida dhexdeeda ah wuxuu dhaliyaa buuq iyo muran badan marka ay hal kursi u soo istaagaan 2 ama 3 qof oo Soomaaliya doorashadii sanadkaana waxaa laga bartay in la wada tartami karo sida ay Ilhaan Cumar u sheegtay mar ay ka hadlaysay xaflad loo qabtay 4 qof ee ku guuleysatay doorashada sanadkan halgamadaanayta aan soo galnay halgamo fudud ma aha Soomaalida way og yihiin shaqada badan iyo tartanka badan aan Soomaali hadii aan nahay maalin kasta aan ku jirno waxaan u maleynayaa hadda inay noo fududaatay oo dhaqankii Soomaalida ay isla tartarmi jireen iyo xumaanta loo arki jiray in aan ka bixi doono oo la dareemi doono in hadii 2 qof Soomaali ay kursi isku la tartanto inaysan wax xun ahayn oo kii u qalmo uu ku soo guuleysan doono Soomaali iyo Kenya iyo meel kasta Soomaali way isla tartamaan qofkii u qalmo kursi ku guuleysto taas inaan inta barano waa mid muhiim ah waxaan u maleynayaa tartankii hadda ugu dambeeyay taas inay si fiican u cadaatay Ilhaan ayaa dadkii ay la hadlaysay ku tiri 2 kursi oo aan ku guuleystayba waxay ii ahaayeen lama filaan lagumana riyoonin waxayna Ilhaan kala hadashay qodobo dhowr ah oo aan qayb idinkaga soo xulay khudbadeedii because 2 jaga aan dhiyeystayba waa 2 jaga aan wiligood laga filanaynin qof anoo kale ah inuu san raaynin qof aniga oo kale ahna wiligiis America lagu mariyoonin in uu federal kursi ku fadhiisan doono waqtigan aan ku jirnane lagu mariyoonin qof ani iyo qof u dhowbo in uu kursi heli doono meesha aan u socdo meel fudud ma aha waxa idinka ay iga sugaysiin wax fudud ma aha dadka ay hor istaagsanna dad fudud ma aha kulligeen waxaan haysanaa sanadkaanayti fursad weyn fursadaasi waxay tahay in aan helnay dad Soomaali oo jagooyin ku fadhiistay oo meel kasta Soomaalida ka buuxin karto cudurdaaradeena oo dhan teekeer gareyn karto kulligeen waxaan idinka ballan qaadeynaa inaan isla wada shaqeyn doono kulligeen waxaan idinka ballan qaadi doonaa in idinka ay idin shaqeyn doono idinkana waxaan idinkaga baahanahay sidii hodan ay tiri oo Maxamuud sheegay oo Siyaad sheegay in aad nala shaqeysiin in aad kalsooni nagu yeelatiin in aad ogaatiin in annaga aan nahay dad idinka aad dirsateen dad idinka idin maqan dad walaaltinimadiina raba inay ka shaqeeyaan iyo midnimadiina idinkana idinka sugaaya in walaaltinimadeena iyo midnimadeena aad ka shaqeysiin dadka wadankaanayta degan wayna la yaaban yihiin because qaxooti kasta oo naga soo horeysay wixii 40 sano 50 sano 60 sano ku qaadatay ama ilaa ay hadda wili ay la yihiin annaga noo suurtooday 20 sano anagoo joogno inta business yaal aan leenahay inta iskool aan leenahay inta dugsiyaal noo furan inta dad la doortay aan wadankaanayta ku leenahay waxaas oo dhan dadka mangaga ama Koreaanka ama Vietnamese ama Bosniaanka oo isku waqti aan wadankaanayta soo galnay dadka Russian immigrants oo Sovietska markii uu burburay imaaday dadkaas oo dhan
wax ilaa iyo hadda ay raadinooyaan Soomaali oo dhib Ilaahay og yahay ku imaatay wadankan dhib Ilaahay og yahay aniga dadka hadda wiigaanayti aan la kulmay waxay ku leeyihiin ayayday sidii aabahayo kale iyo hooyadayo kale inta qaxooti ku imaatay waxa ka hadlaysiin aan ku dhaanaa qaxooti inta ku imid 20 sano ka hor dadka ma in aqligooda ma qaadi karo ma fahmi karaan dad 20 sano ka hor qaxooti ahay in maanta congress ay fadhiyaan siyaad saciid saalax aad iyo aad ayuu mahadsan yahay barnaamijkii duhurnimo waa naga intaas tan iyo 5 galabnimo nabadgelyo